asalaamu calaykum khayarta walba joogtiin war kale muuqaal cusub aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay suuqa iyo akhbaarada haatan la diiwaan gelinayo Arsenal oo Manchester kula dagaalamaysa laacib ka tirsan kooxda Everton Mohamed Salah oo Sacuudiga u dhaqaaqaya iyo kooxda Al Nassr oo lacag waaweyn u soo bandhigtay Man City oo markaan diyaar u ah inay gabagabeeyaan sheekada Elliot Anderson Chelsea oo wada hadallo kula jirta laacibka lagu magacaabo Master Julian Alvarez iyo Manchester United oo markaan doonaysa xidiga lagu magacaabo Eric Militao oo ka tirsan kooxda Real Madrid iyo akhbaaradii kale ayaan isla eegayna haddii aan muuqaalka heshan oo la garay kanaalkana subscribe noo saar haddii aanu ku bilowno akhbaaradii ugu dambeeyay suuq warar badan ayaa la diiwaan gelinayaa waliba warar waaweyn ayaa xilligan jira kooxda kubadda cagta ee Al Nassr markaan waxay diyaar u tahay in Mohamed Salah ay ka dhigaan bedelka Cristiano Ronaldo Liverpool iswiilkooda superstar-kooda weyn ee Mohamed Salah oo xaalad adag markaan ku haysata qalcadda Anfield bandhigiisana oo markaan hoos u dhacay majalada lagu magacaabo Daily Mirror iyo majalada kale la yiraahdo Catch Office dhammaan waxay wada daawacayaan in 33 jirkaan markaan u dhaqaaqayo Sacuudiga waliba isagu qaadan doona mushaar gaaraya 1.2 milyan isbuuci 1 milyan iyo 200 kun ayaa farta laga saaraya wiilka reer Masar ninka lagu magacaabo Master Mohamed Salah Cristiano Ronaldo oo bandhig fiican ku haysta Sacuudiga haatan waxa la leeyahay iskaga dhaqaaqaya dhanka iyo Al Nassr maadaama khilaafyo badan ay jiraan laakiinse waxa haatan isku wada raacay Sacuudiga madaxda ugu sareysa iyo kooxda Al Nassr markaan waxa la leeyahay bedelka ugu macquulsan midka ugu haboon waa Mohamed Salah u dhaqaaqitaanka Sacuudiga waxyaabo badan ay markaan isagu ka saacidi doonta si walba ha noqotay haatan waxa la diiwaan gelinayaa in Mohamed Salah uu markaan dhaqaaqayo dhanka iyo Sacuudigana markaan u boqolayo isagoo lacagaha inta la eeg 1.2 milyan isbuuci qaado doona marka isbuuci markuu inta qaato waa imisa ninku 9 milyan ila 10 milyan lacagaha ayuu qaadan doona bishi marka mushaarad wali ayaa halka looga yaboohaya wiilka reer Masar marka akhbaaradidana wixii ka soo kordhay waan arki doonaa dhinaca kale xaalado dhowr ayaa haatan soo baxay ku aadan laacibka xulka Argentina iyo kooxda Atletico de Madrid ninka lagu magacaabo Julian Alvarez kooxa badan ayaa daneynaya Premier League ka dhisan iyo horyaalka Spain Barcelona ayaa ugu cadcad walow haatan majalada Team Talk ee markaan warinayso in Chelsea ay wada hadal horumar leh markaan la sameynayaan xidiga lagu magacaabo Julian Alvarez iyagoo markaan doonaya inay la soo siixdaan Chelsea waxaa laga diiwaan gelinayaa inay markaan u dhaqaaqayaan hoggaankan u hayaan weeraryahanka Atletico de Madrid ninka lagu magacaabo Julian Alvarez oo heshiiskiisa u dhacayo ilaa 2030 laacibkanna lacago waaweyn ayaa madaxiisa markaan dur saaray Chelsea waxay diyaar u tahay 82 milyan inay markaan sheekada ay ku galaan majalada la yiraahdo ESPN ayaana warbixinta banaanka keentay Chelsea waxaa la leeyahay iyada ayaa hoggaan ku haysa laacibka lagu magacaabo Julian Alvarez isagu wuxuu doonayaa u dhaqaaqitaanka kooxda reer Catalonia ee Barcelona si weyn iyaga ayaa u raadinaya oo waxay rabaan bedelka Robert Lewandowski inay ka dhigaan ha ka reebin Arsenal oo ninkan indhaha ku haysa laakiin Chelsea waxaa la leeyahay advance ayaa markaan ku yihiin sheekadu ayaga ayaa markaan ugu cadcad oo horumar ka sameynaya wada xaajoodna kula jira waxayna rabaan Julian Alvarez inay la soo saxiixdaan marka adigu maxay kula tahay Julian Alvarez Chelsea ma la saxiixa karan Atletico de Madridna laacibkan haatan ma ogoliin inay lumiyaan marka xil ciyaareedka dhamaado marka sheekooyinkana waa nagu la wadaagi kartaa qaybta hoose commentiga fikirkaada marka Blueska sheekooyinka ayaa laga diiwaan gelinayaa dhinaca kale xaaladda Militao wiilka dhaawacyada ragaadiyeen wiilka laba match isku xigta Madrid aan haatan u safakarin laacibkan Manchester United ayaa markaan daneynaysa majalada lagu magacaabo Team Talk iyo majaladaha kale ka soo baxa Spain iyo England waxay markaan leeyihiin Manchester dalab showga ayay direen oo offer ay Madrid hor dhigan markaan sida la warinayo waliba offerku 40 milyan ayuu ku kacaya laacibkana markaan waxa la rabaa in dhanka iyo Old Trafford la keeno Manchester United Eder Militao ayaa markaan daneynayaan Manchester United waxay direen heshiis ama dalab hordhaca oo formula ay Madrid markaan hor dhigan iyaga oo doonaya laacibka inay soo xirigelin laacibkana 2 jeer ayuu dhaawac ACL galay sidaa daraateed Madrid markaan reed ay u taayay leeyahay inay iska iibiyaan iyaga ruuxda warar waxa jiray sheegay in Lani Yoro Manchester United laga doonayo Madrid ay doonayso sheekadu haatan waxay maraysaa in offer ninkan la hor dhigo oo kooxdiisa Madrid la yiraahdo 40 milyan ka warama sheekada hadaan ku dhameeyno Militao-na dhanka iyo Old Trafford u soo wareejisan labadan kooxood marka fiiriso sanadii ugu dambeeyay xidiga badan ayaa marka isdaafayayo Farana ahayba inta ka soo dhaqaaqa Madrid oo difaaca Manchester United yimid Casemiro ayaa Madrid ka soo dhaqaaqayo yimid Manchester United marka Manchester iyo Real Madrid waa niman si wacan isku dhaxgalo is yaqaano laakiin sheekada haatan waxay taagan tahay Militao ayaa daneynayna
lacagahaasna diyaar ayay naga yihiin marka Madrid ma ka soo jawaabi doonaan oo ma oranayaan diyaar ayaan nahay anaguna inaan wada xaajood aan galno sheekadana aan dhameyno marka taana waqtiga ayaa kala cadeyn doona marka Manchester Militao ayaa markaan daneynayaan dhinaca kale xaaladda kooxda Manchester City ee ku aadan Elliot Anderson Man City haatan waxay rabaan xil ciyaareedka markuu dhamaado inay u dhaqaaqaan Elliot Anderson waliba haatan waxa la leeyahay Man City waxay isku diyaarinayaan dhaqaaqid weyn oo 100 milyan ku kacaysa iyaga oo markaa raba wiilka Manchester targetka ay ka dhiganayso markaan in ayaga xaggooda ay soo mariyaan Man City waa ku caan kooxaha qaar inay offside-ka ku deeso ciyaaryahan qaar inta dalbadaan dadka uga baxaan markay qaaliyayaan kuwana ayaga ayaa afduubta sida Anthony sameeyeen oo kale ee Liverpool ay ku sameeyeen iyo ninka la yiraahdo Maguire marka City si walba haatan waxa la warinayaa in laacibkan ay daneynayaan inay soo xirigeliyaan waliba Pep Guardiola ayaa laacibkan daneynaya Pep Guardiola isku ruuxiisa mustaqbalkiisa shaki ayaa la gelinaya oo waxa leeyahay Enzo Maresca ayaa bedel u noqonaya laakiinse City ama Guardiola ha joogo ama ha dhaqaaqo laacibka la yiraahdo Elliot Anderson si weyn ay u daneynayaan xidigana waxay rabaan inay markaan ay soo xirigeliyaan marka soo kaleeto dagaal weyn ayaa Sandro Tonali loogu jira Man City haatan qayb ay ka soo noqonaysa sida warar geesida qaar gudaha England ka soo baxay haatan daabacayaan laakiin Man City diyaar ay u tahay 100 milyan in ka badanba markaan inay ku qarash gareeyaan suuqa soo socda waliba ay si qaas ah u soo qaadaan xidig cajiibka ninka lagu magacaabo Elliot Anderson marka Elliot Anderson koox badan ayaa daneynaya United ayaa laacibkan target ka dhiganaysa City waxay rabaan laacibkan inay afduubtaan Liverpool ruuxida sheekada qayb ay ka noqonaysa marka sheekadu halka ay maraysa Man City-na laacibkan ayaa daneynayaan maxay kula tahay adigu qaybta hoose comment-ka nagu la wadaag fikirkaada dhinaca kale kooxda kubadda cagta Arsenal markan waxay daneynayaan xidiga lagu magacaabo Ndiaye kaas oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Everton xidigan markan koox badan ayaa daneynaya Arsenal ayaa markan dagaalka soo gashay laacibkan Arsenal waa uu ku fiican yahay maadaama marka loo eego performance-giisa haatan uu Everton oo ku haysto laakiin Manchester ayaa meesha ku jirta Manchester ayaa dagaalka qayb ka noqonaysa laacibkan marka dagaalku wuxuu noqonayaa in labadan kooxood markan ku hardamaan Manchester United iyo kooxda kale ee la yiraahdo Arsenal markan waxay ku dagaalamay doonaan Ndiaye laacibkan waa laacib cajiib oo fantastic oo haatan bandhig fiican ku haysta dhanka iyo kooxda kubadda cagta Everton Arsenal macalinka hogaamiye Mikel Arteta xidiga badan ayuu daneynaya liiskana markan waxa ku soo baxaya ninka lagu magacaabo Master Ndiaye marka Ndiaye haatan Arsenal ayaa doonaysa Andre Barreta rag badan ayuu suuqa ka doonaya maadaama uu yahay ninka suuqa Arsenal haatan u qaabilsan macallimiinta Arteta ragga uu yiraahdo keena asiga u keeno marka rag badan ayuu markan doonaya qayb waxa ka noqonaya Ndiaye sidoo kale Manchester ayaa doonaysa kooxa kale tan si weyn ayaa loo xiriirinaya xitaa The Blueska ayaan arkayo Chelsea warar la xiriirinaya xidigan inay markan doonayaan marka ninka lagu magacaabo Ndiaye sheekadiisa halka ayaa maraysa Arsenal la dagaalka ay ku soo biireen waxayna doonayaan in ay Manchester United ee laacibkan ku garaacaan marka sheekooyinka ay wixii soo kordha waan arki doonaa hadii muuqaalka soo la garay kana ka subscribe nasar goodbye